عليه الصلاة والسلام عباداتك إلهي اللي قلنا وهذا وكمت لما مسلمون انت اسكو خلاف سرين ما جرتو ولما دوحيد هذا محل النزاع عين لك ارتابها بون هذا دركت مسألة اسكو خلاف سيئة وحل اسكو خلاف سيئة اكزاكتلي محويين لك ارتابها في عام النبي صلي جيسو وعبادة qofkii badsan kare kaste muslime ha badsado saxaabi baa uu yimo wuxuu yiri ilaahay rasuulkiisa markaan ducaysanayo ducadayda gaarka ah rubuc wax ku dhadhoobaan adiga ka dhiga haddaad doonto ka badso buu yiri wuu soo waday nus baan ka dhiga haddaad doonto ka badso wuu soo waday markii dambe yiri haddaad ducada oo dhan ba adiga salligaagaan ka dhigi haddaad ka wada dhigtay buu nabigu yiri hammigaaga ilaahay kaaga filaanaya idan salliga nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo badsiga la badsadaa waa min addiin hamiga alla kaaga warwar adduun oo dhan baa kaa ba'aya haddii problem kasta ku qabsado intaad halkaa fadhiisato nabiga salligiisa aad badsato uu kaa tegaya soo qolada psychology-gu ma yidhahdaan waxa sameeya kan sameeya halkaa haddaad fadhiisato ama tasbiixsato ama salli nabi qaado waa kaa tegaya idan salliga nabigu calayhi salaatu wasalaam waa diintuu ka mid yahay kalgacalka nebi maxamed la jeclaadana waa min addiin bal wuxuu gaarsiisay in lagu amray aabaha iyo hooyada iyo intaad dhashayba inaad isaga ka horumariso ka jeceshahay inaad nabiga jeclaato macnaheedu waxa weeyaan warkiisu inuu kaala weynaado cid kastoo kale marka alla laga yimaado warkii isaga inaad warkiisa ka horumariso kamaalu liimaan ama iimaanka dhammaystirankiisuna wuxuu ku xidhan yahay sida inuu nabiga u jecelay calayhi salaatu wasalaam jacaylkiisana waxyaabaha tilmaamo waxaa ka mid ah قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إن نسجر راعنه سؤال سويدين تلي مركا ما أها النبي محمد وينين تيسه كما هذلين قفك مسلم كي كدو دانا وكو قالوا بيا واضح صوت اسمع قفك مسلم كي النبي محمد وينين تيسه كدو قاليا وكو قالوا بيا وهم حي مركا علادو حاجة كجرتا علادو وحي كجرتا maalintaa in la xusaamo tahay qaab loo weynaynayo waa isku wada fursanna inaynu weynayno laakiin qaababkii layna faray inaynu nebiga u weynayno maalintaa in la xusaamo ku jirtaa nebigu inooma sheegin isaguna ma xusin saxaabadii la joogtayna ma xusin taabiciintii ka dambaysana ma xusin madaahibta afarta ah culammadaynu ku naqaanayna may xusin haddaa xagee ka timi waa dambay muslimiinta badh ay la yimaadeen taarikhyahanada badh إمام المغريزي في كتابه سوق الطغرانية waxay soo bilaabantay bay ku tilmaamaan dawlad Faatimiyya markii ay joogtay Masar dawladii ka talinaysay Ubaydiyinta loo oran jiray qolo Shiica ahay ayaa waxay keentay 6 mawlid 6 birthday mawlidku waa birthday 6 birthday in la xuso nabiga alayhi salaatu wasalaam Ali ibn Abi Talib Faatima Hasan iyo Hussein iyo boqorka شنطها إنه نقضه وحلا حصية لحدا إنه نقضه وحلا حصية دولة دي شيء عذا هيد بالرفيدي مركي الرفيدي نمكي ما يشغب صدي واحد هو شنطة شيء عذا أنا قطور النبي أنا أسكح حسن شنطين وكت كان نوع حسين علماء ده وقت جاء وحكي دم يسوي وحي سويديان والمسألة دني ما كم متهاي وحي دين تو ينوشي يسمسك كم مدها علماء ده برضو حيل هذا ورد بكم الشرطة دين النبي قال حصوا كاسي علماء بدرين وحيلين وروحني مسؤول لكن أنا هالكلام هو شيء يا وحاصرنا كبحثنا هذا ما قشوا مسألة ده النبي قوم الصماينين أما صحابة دي ما الصماينين كما الصماينين سؤال بنكو دينية نبي محمد سيدو قال له عابد السكة بدن ميادو عابد كرسة ما أنت أنتي النبي محمد والسميين لما يسوع أنسقون ما النبي ده عمرها صحيح ما ما أنت أنتي النبي محمد كاتو أن سويدين وحى صهر ما بناته مسمى بنانا لكن أنت بهدارة هينين وحبب بدعة كورب إذا النبي محمد مالين هوية لنا مالين والبقصل عليه الصلاة والسلام إن تصنت كي مالين سكتو أو تنادى مالين تصل مسلمية مالين تتنقل كلام مركينو كأجنو ما لقرنا يا مالين تو إجزاكت النبي يقول الشيء تاريخ دي عربية ده هراء وحيقول لي أنت يصير تاريخ دي الصومالي ده Soomaalidu baadiya ku dhalata siday u calaamadsan jireen laba wax bay calaamadsan jireen toddobaadka maalinta ka dhashaan way calaamadsan jireen waxaad maqlaysaa hebel isniin mu dhashay khamiis mu dhashay jimcu dhashay axad mu dhashay taa Soomaalidu ma laha way calaamadsan jireen waxay kaloo calaamadsan jireen
gugii ama dayrtii la dhashay wixii jiray gugii reer hebel lagu duulay gugii hebel dhintay gugii dayrta badnaa gugii cayn ayaa la calaamadsan jiray carabtii jaahiliyaduna saasay ahayd nebi maxamed markuu dhashay calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay maalintuu dhashay iyada wuu sheegay isniin baan dhashay buu yidhi isniintana wuu soomi jiray isniinta iyo khamiisahana wuu soomi jiray markaa wuu sheegay inuu isniin dhashay sanadkuu dhashiyo bishuu dhashay cidima garanaysaa sanadkii waxa la yidhi sanadkii maroodigu maka ku soo duulay buu ku beegnaa marka waa sanadkii maroodiga markaa taariikhda la raadinaya war sanadkaasi halkuu kaga beegnaayo halkaasuu ku beegnaayo halkaasuu sanadkii maroodiga ugu dhashay ayay culimmadu yidhahdeen bisha ma la garanayaa waxay yidhahdaan waxaa loo filaya inay tahay bisha rabiicul awal maalintana isniinta rabiicul awal qolo waxay yidhahdeen 12 ahayd taariikhyahanada hadda jooga waxay leeyihin markaa dib loo baadho 12 isniinba maaha nebiguna wuxuu yidhi isniin baa dhashay soo maaha haddaad dib u raacdo bay leeyihiin 12 isniin ma haysee la yeelayaa axad alxufaad wuxuu leeyahy war 9 ahayd culamo kale waxaa qabtaa 8 marka maalintan 12 waa ashharu laqwaal waa warka ugu caansan ee taariikhyahanadu ay qoraan laakiin exactly inay ahayd maalintaasi xataa maalin laysku waafaqsanyay maaha soo duuduub hadday tay nebiga weynayntiisa maalin walba weyne 12 rabiicul awal ha sugine sanadkoo dhan weyne maalin kasta ku salli maalin kasta waxaad u samayn karta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam u samee hadday tahay maalintaasi miyay diinta ku soo aroortay waxaa dilla ammaan arag anigu wallahu aclam